madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa kadib safar qaatay muddo 2 cisho ah oo ku joogay Jamhuuriyadda Djibouti kaasoo la xiriir martiqaad rasmi ah oo ka helay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxaana noqonaysaa safarkii uu dibadda ugu baxo kii ugu horeeyay kadib markii ay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport oo diyaaradda khaaska ah ee sidee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka Soomaaliland iyo waliba saraakiisha iyo taliyayaasha ciidamada kala duwan intaasi kadib waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay muddadii 2 cisho ahayd ee safarka ku joogeen martiqaadka rasmiga ah ee ka heleen madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle wasiirka wasaaradda umuraha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire waxaana kamid ah hadaladiisii taako sinina oo bisha 8 waxaan ka soo laabanay dalka Djibouti annagoo wafdi uu hogaaminayay madaxweynuhu oo ka kooban wasiiro iyo taliyayaasha ciidamada intii aan joognay Djibouti si wanaagsan oo mirgale oo qurux iyo xaraga leh ayaa naloo soo dhaweeyay waxaanu saragnay madaxweynaha waxaanu la kulanay wasiirada dhigayaga waxaanu soo maray kormeer ku soo maray mashaariic xarumada oo aad iyo aad u badan oo qiimo badan oo ku dayasho mudan xalina waxaanu la kulanay jaaliyadda si wanaagsan ayuu safarkaas noogu dhacay mid saaxiibtinimo shaqaab uu ahaa mid inaga dhaxeeyay inkiyo Djibouti weeye sida caadi ahaan jirtay hadii jarmalka madaxweynaha la doorto wadanka ugu horeeya uu tagaa waxay ahaan jirtay Djibouti taasoo ka turjumaysa yani ehelnimada iyo maxay raadayay cilaaqaadka wanaagsan ee naga dhaxeeya dhinac walba hadba maasinti Abdirashiid Abdi Wahab Hussein Universal TV Hargeysa.